I have many dreams on the camps to see that we go back to the homes, and the homes will have to be rebuilt, all things, and everything become normal, and we live peace and good life again. I told to my children the times will come better, and we back to our country, and you will have to be back to start to your schools and your background to be built as well as before. Kaaga sheeg mar waxaan ku riyoodaa iyadoo meydadkii iyo dhibaatooyinkii iyo dhiigii qulqulayay iyo dhibaatooyinka aan soo marno naftu aad u didsan tahay marna iyadoo dhibaatana soo martay oo ama BMK-na lagu garaacay ama dhiigagii ama rafaadkii badnaayeen muddada aad ku soo jirnay ilaa Itoobiya iyo ilaa Hargeysa dhexdooda unaanu baabaayna anagoo waxba garanahay kadib markii muddo badan dagaalkii socday cadowguna soo galay magaalada waxaa kalifay in madaafiicda aan isticmaalno waxay ahayd cadowgii guryo galay guryihiina ciidamadii ay si fiican u faltami karin si loo naafeeyo ayaa kaliftay in madaafiicda aan la isticmaalo waajibkuna waa kala qaybsan yahay qol walba waajibkii aagi la siiyey inay naafayso ayaa laga doonayaa saraakiisha hogaamiyaasha oo meesha joogo waxaa ka mid ah lamna cabdi madan qalab lamna abaabir iyo saraakiisha hogaamiyaha hore iga jira intaaba waa wada joogaan marka anigu waxaa waa inaan waajibka siiyo iraahdo waajibkiina waa aad kadib ayaga inay fuliyaan. Deze authentieke opnamen van de verwoesting van de stad Hargeisa waren onderdeel van een instructiefilm van het Somalische leger. De video moest als voorbeeld dienen voor soortgelijke acties in andere delen van Noord-Somalië. Voor de burgeroorlog woonden in Hargeisa 500.000 mensen. Bij de gevechten in mei 88 vielen er meer dan 60.000 doden. De rest van de bevolking sloeg op de vlucht. There was much dead body. So we burying that dead body at the night time, because in the daylight we are afraid of the bombing continue. In the night times, all the night times we are burying on the dead body and getting some water and some food all the night times. All the day times we are just laying on for bombing of air attack and heavy artillery. meel bakhaaraho bay'aan mushtara ayaan ugu fadhiyay halkii baa maalinimadiina laga dareeray iyadoo hubkii waaweynana lagu garaacayo guryihii ayaa markaana lagu xareeyay 3 cisho ayaanu markaa guryihii ku jirnay iyadoo raashinkii aanu dhiganay ay naga boobeen oo ay guryihii ka baadheen 3 habeen kolkaanu ku jirnay ayaanu isnay haddaba markaanu macluul goonay bakhaaradii taga oo wax raashina ka soo qaata markaanu guryihii ka soo baxnay baanu soo galnay meel dooxa ayaanu soo raacnay laamayadii iyo suuqii Soomaaliya maray kolkii aan halkii dooxayd ka soo talawnay ayaanu meydad aad u badan aan ugu imi oo rasaasina si xoog ah u socoto oo la raranayo alaabtii
ninaan walaalanahay oo markaa ila socdo oo yar wareersan oo isna suuqa ka soo qabtay halkii bay ku dileen. When this bombings continued, we decided to go through Ethiopia, this nearest border we can reach. In this case, we started to walk on foot, and it takes for us about 12 days. On the road, you always seeing the peoples, the elders, the children, women, all just running each after on the road and pass to the border, cross to the border to Ethiopia side. De Ogaden-woestijn in het oosten van Ethiopië. Een van de meest onherbergzame gebieden van het land. In juni 88 kwamen hier in een paar dagen tijd bijna 500.000 vluchtelingen aan. De oorlog in Somalië bleef in het wereldnieuws maanden onopgemerkt. En dat duurde dan ook lang voordat de hulpverlening hier op gang kwam. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen stond voor de bijna hopeloze taak om in deze woestijn de vluchtelingen in leven te houden. Hargeisa was voor de oorlog een welvarende stad. De vluchtelingen die hier vandaan kwamen zijn dan ook goed opgeleide vaklui, handelaren en intellectuelen. Zonder enige noemenswaardige bezittingen moesten ze van de ene op de andere dag wennen aan een vluchtelingenbestaan. This is my family. This is my children, the wife, the sister of the wife, and my children. Some of them are not here, and this is the tent I live with my boys, and this is the kitchen we cook. That's the kitchens of the family. And we also, this is the tent of the ladies and wives is also sleeping. And that's the present situation we live here. And that's it. De Somalische vluchtelingen zijn eigenlijk nooit nieuws geweest. Ruim 3 jaar zitten ze nu al in dit kamp. Nog dagelijks komen er nieuwe bij. Vooral uit het zuiden van Somalië, waar troepen van de gevallen president Bar oorlog voeren met de nieuwe machthebbers. Iedereen moet zich in het kamp laten registreren. Alleen dan heb je recht op gerantsoeneerd voedsel. When we came, the refugee camps, first day in Hashans, it's very strange for us. Anybody's like this, very strange. Thousands of people who was just staying blind, waiting something to give, and there's no water, there's no home, there's no anything. There's no tent, there's no home. There's no water, and I am very strange and wonder it happens like this on my age. I don't expect it on these days we meet. And it's very difficult for us, and I wonder, and it is. I told myself it's better to be dead. Dead, but it's better. Died, but it's better. I told my life on this situation. Ibrahim was in Hargeisa een succesvol man. Als manager van de luchthaven had hij een goed salaris, bedienden en een groot eigen huis. De verwoesting van de stad verraste ook hem en zijn gezin volledig. aad bay dawr ugu dhimaysaa
qof shaqaysan jiray oo raaxaysan jiray markuu gacan bariyo uu tago dawar aad bay daa wuxuu dhintay markaa noloshii dee horeynu ku noolaan jirnay iyo dee nolosha imika isku mid maaha wax weyn baa u dhexeeyay qof shaqaystay oo nolol wanaagsan ku soo noolaa markuu dee la kulmo bariyo nusqaan weyn iyo dhibaato weyn ayaa dee haysata waxaan dareemayaa dadku markii hore aan gacanta ku hayay dad wax aan baray oo tacliin bartay oo baxayay oo nidaam leh oo fiican bay ahaayeen intii aanu dibadda u soo baxnay dadkii waxay noqdeen wax qaarkood dawar ku dhaqaaqeen markii hore noloshiina aad u daciiftay sharaftii aad u daciiftay quruxdoodii aad u daciiftay waxbarashadoodii aanay jirin wax ciidanka kolkii dambe ku biireen wadee dhibaatooyin badan ayaa korintoodii dambe 3 sanadood iga qabsatay hooy la'aan hula-aan waxyaabo badan ayaa 3 sanadood dhibaato xoog leh iga soo qabsatay deewdeen hayntoodii Sinds 2 jaar heeft Ibrahim weer een baan. In het kamp is hij op vrijwillige basis een soort gezondheidswerker. Hij is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de talrijke begrafenissen. En verder moet hij bij zijn dagelijkse rondje in het kamp nieuwe ziektegevallen opsporen en registreren. My feeling of my work, whenever we saw somebody who need assistance and we could not do anything for that, we became angry and hopeless. These died body, most of them, some of them dying for dehydration, and some of them is dying for, especially for children, they are dying for diarrhea, measles, and so on. So there's no vaccine for them most of the times. Sometimes you got some, but most of the time there's no vaccine. So you can see that most of the people is dying without assistance or without survive for themselves. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر رولين Het gezin van Ibrahim zit nu al ruim 3 jaar in het kamp. In die 3 jaar is de bevolking van het kamp bijna gedecimeerd door de hoge sterftecijfers. De overlevenden blijven hopen op terugkeer naar Somalië. Een half jaar geleden is het regime dat verantwoordelijk was voor de uitroeiing van de Noord-Somalische bevolking gevallen. Ze lieten een verwoest land achter. Toch keren de eerste groepen vluchtelingen weer terug naar hun geboortegrond.
Het bevrijde noorden van Somalië is nu omgedoopt tot de Republiek Somaliland. De meeste vluchtelingen durven nog niet terug te keren. De meerderheid wacht af in het kamp. In Somalië zijn hun huizen verwoest, hun banen verdwenen en voedsel is er nauwelijks. Internationale aandacht voor de wederopbouw van hun land is er niet. In het kamp is er tenminste voedsel. Gerantsoeneerd en lang niet altijd in de beloofde hoeveelheden. Maar het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen weet hier in ieder geval van het bestaan van de vluchtelingen af. Ook krijgt iedereen in het kamp iedere dag 2 liter water. 60 vrachtwagens zorgen dagelijks voor de aanvoer van het water dat uit de bronnen op 70 kilometer afstand gehaald moet worden. Vluchtelingen in leven houden in deze omgeving is niet eenvoudig. Voor hun aankomst waren de schaarse waterbronnen net voldoende voor de rondtrekkende nomaden. Dat gold ook voor het brandhout, dat nu tot in de wijde omgeving van het kamp is weggekapt. It is no tree near. And where it go further, it's difficult for us to get the firewood because if you leave in the morning to find out the firewood, on the midday you can get the firewood still, just walking on foot, and the nomads would have to struggles and said we belong the the trees and the firewood. And if somebody go on the area and to collect some firewood, they refuse and chase out. Always chase out the peoples from the refugee who want to collect the firewood. Sometimes shooting, sometimes putting clubs, and so on. waxaan ku shaqaysano male waxaan ku socono male xarakaad male bas waa inta yaree raashinaha qamandiga aan suga toddobaadkiiba marka wax xarakaadaho kala oo deemeeshii yaala ma jiro intaana waqtiga iyo barada nafta ku ilaalay inta maartay isbedel kale oo hadana dhacaya mooyaan wax kala xarakaad oo qabanaa ma jirto waxa aan ku warwaraa qof baa kugu bukooday marka ama aad dawooyin u weydo ama nafaqa daraani ay ku dhacdo ama wixii uu cunayay wax isbedeli uu noqon waaye ee wixii wax kaliya uu noqdo kolka qof kugu bukoodo wax isbedelaad ku geyso wax dawooyin aad u siiso wax nafaqadiisi kor u soo celiya wax maxaan ku raahdaa nadaafada waxyaabo caynkaas kolkan arki waaye martay aad bay naftii murugoota aad bay tii uga duwan tahay lagu qaban jiray dalka waayo halkan maalintii waqtiga waxaan isku dhaafnaa haruur yar oo la tumo oo marka dabka la saaro oo qabadinka yar la tumayo oo dabka la saarayo biyaha la soo dhaaminayo mar suuqa wax yar looga adeeganayo waxyaabo caynkaas ayaa waqtiga maalintii aan isku dhaafnaa wax kale oo meel kale aan qabanayo wax kale oo qabanaa toona ma jirto bas waa inta warwareega aan guriyaha dhexdiisa iyo biyaha yar la soo dhaaminayo raashinka yar ee suuqa wiiga jimcaha ayaan taa wax la soo qaadayo bas waa inta
Blij, maar ook onzeker over de toekomst, begint het gezin van Ibrahim aan de terugkeer naar Hargeisa. Samen met 2 andere gezinnen hebben ze lang moeten sparen om een vrachtauto te kunnen huren die ze terug zou brengen. De tocht gaat dwars door de woestijn naar het bevrijde, maar berooide land. 2 soldaten moeten ze beschermen tegen aanslagen van rondzwervende bandieten. dareenka laga qaano ka qabno ma garanaysaa sidii arrimo hore u ahayn iyo xaalku imika siduu yahay waa mid aad u xoog badan oo ma garanaysaa 3 sannadood meesha joognay aad tiiraanyo u leh aad buu tiiraanyo u leeyahay ama xusuus aan yani maartay niyada ka baxayn waqtiga naga lumay haddii la qiyaaso yani matalan daadayadii kuma jiraan 3 sannadood way waxaanu qabanay baan jir marka mar haddii aanad waxaad qabatay jirin noloshaadii waxa la waxaad qabsatay aan jirin daadaadii kuma jirto it's related to our age daadayadiiba waanu ka saarnay 3 sannadood waxa la yani aanu qabanayna ma jirto waxa aanu samaynayna ma jirto dareenka iyaguna yani aad buu uga xun yahay yani maartay dhibaatada inta le ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل صلاتنا تامة واغفر ذنوبنا عامة واغفر لنا Meer dan 90% van de huizen van Hargeisa zijn door het leger van de verdreven president Bar verwoest. Het is de eerste keer dat er sinds de bevrijding opnamen van deze stad gemaakt kunnen worden. Ondanks de enorme verwoesting keren steeds meer bewoners terug naar hun stad. Vaak gaan alleen de mannen vooruit om de mogelijkheden om hier te overleven te verkennen. 6 maanden geleden was deze stad nog volledig uitgestorven. Nu wonen er al meer dan 100.000 mensen. waxay ku xidheen baladi miina maalintii fujinayeen miinay ku xidheen hal waxay soo gooyeen oo dhan miina ku xidhan badana miinadana ay la kacay waa markay xasawda goosanayeen la arkay maar markay gooynayeen weeye mayla baxan maxay dee waanu dumahayn si kale iyo garaa'idkii ma garanaysa ku fadhiyay daaqadaha iyo khayaaradaha kuwii weeyaan kuway la baxayeen balad iyo birta leerka badina waxay u xidhayeen miinada waxa weeye hadumo guriga iska baabo way kuwa soo jeeday madaafiic soo maalintii ay ku soo noqonay ma garanaysaa maalintan ku soo noqonay hore caadi bay dhisneen oo aqalkan ka hurdada meel yar dusha kaga soo dhacday kan hurdada ay dusha xabadeeda kaga soo dhacday sidii waxa weeye malaha fiin diyaarada ay xabad qori halkan kumanha kaga soo dhacday in alla inta kale sideedii bay mar qora madfac kuma dhicin jinkadana saanu bay ugu dulqaaday ayay ugu dulqaaday dee wax wada baro ay baan jinkadu isma This is my house. This is the bedroom and sitting room here. And this is the bedroom and toilet. Sorry? Bedroom and toilet here. Oh. Why?
That room on this side was the dining room, and the other 2 rooms was the one for sisters and one for the sons. Why? Inside, no, we can't go inside because we are not sure there's something inside. We don't. What kind of things? The explosive. We have read that there's some explosive there, and we cannot do unless we check with these things. We cannot go in because it ruins, and one thing is just distractions. It's unlikely. It's very, very, very disgust. We can't say that, such things happens on the humans. Very, very sorrowful. Much mankind cannot be things that such destruction like this. The fighting can be happen, but such destruction of the city, never thinks. Nobody can think such things happen. The present situation is difficult to build and things because that we are in survive the living only. Never thinking how to build now, but how to survive itself. Ibrahim is geen uitzondering. Hij en de andere teruggekeerde vluchtelingen staan voor de bijna onmogelijke taak hun huizen en stad weer op te bouwen. Ze voelen zich vergeten. De wereld is nauwelijks geïnteresseerd in dit deel van de wereld. Honderdduizenden verkiezen daarom nog steeds een verblijf in een vluchtelingenkamp midden in de woestijn van Ethiopië. Daar is tenminste nog voedsel en water. Bovendien heeft het leger van het vorige regime in deze stad nog zo'n 500.000 mijnen neergelegd. Maar toch zijn er 100.000 mensen teruggekeerd. Met een paar golfplaten of een uit het vluchtelingenkamp meegebrachte tent woont men op de plek waar ooit een woning stond. 2 dagen na hun aankomst had ook het gezin van Ibrahim in een van de vroegere kamers een onderkomen gevonden. Maya kan.